muuqaaladani waa kuwa bilihii la soo dhaafay maalin kasta si joogto ah loogu arkayay garoonka diyaaradaha ee magaalada Addis Ababa. boqolaal Itoobiyana ayaa dib uga soo gurya noqonaya Saudi Arabia, halkaasoo ay ku noolaayeen sharci darrana kaga shaqayn jireen. dadkan ayaa ka mid ugu yaraan 400 oo kun oo Itoobiyana oo xukuumaddu aaminsan tahay inay si sharci darro ah uga shaqeeyaan Sacuudiga. hadda waxay ka faa'iideysanayaan cafis ay dawladda Sacuudigu fidisay si ay uga baxaan dalka iyagoo aan xeer ilaalinta la horgeyn. Nuura Axmed waa 22 jir. muddo 5 sano ah ayay Sacuudiga ku maqnayd. jaariyadda ayaan ku ahaa Sacuudi Arabiya, laakiin noloshu waxay ahayd nolol adag. xorriyad aan ku dhaqdhaqaaqo ma haysan. Nuura qoysuma jooga Itoobiya, dareenkeedu waa mid isugu jira nafis iyo qoomamayn. ayaha nolosheeduna ma aha mid sugan. dawladda Sacuudiga ayaa bishii saddexaad ku dhawaaqday olole heer qaran ah oo dalka lagaga masaafurinayo shaqaalaha sharci darrada ah. ololahan ayaa ah mid lagu ururinayo in ka badan 1 milyan oo qof oo la sheegay inaynan haysan warqado sax ah. ilaa iyo hadda dadkan 50% ayaa iskood uga baxay Sacuudiga. wadamo ay ka mid yihiin Ghana, Kenya iyo Ethiopia ayaa wada qorshe ay ku caawinayaan muwaadiniintooda. iyadoo oo u turaysa muwaadiniinteeda, dawladda Itoobiya ayaa ballan qaaday dadka soo noqda in la siin doono lacag deyn ah oo ay ganacsi ku abuuraan. We are really very much worried about the consequences that waxaan aad uga waraacsanahay caaqibta ka dhalan karto kadib marka cafiska uu dhamaado. sababtoo ah waan ognahay in Sacuudiga uu geysay ficilo xabsi lagu dhigayo dadka, mana doonayno in muwaadiniinteena la geliyo xabsi ay dhib iyo bahdil kala kulmi karaan. they will be imprisoned and we don't want our citizens to face unnecessary imprisonment. laakiin heerka shaqo la'aanta ee Itoobiya ayaa ah mid aad u sareeya, kaasoo sababay dibadbaxyo rabshado wata 2 sano ka hor. laakiin lama xaqiijin karo in ballanqaadka dawladdu ay tahay mid dadka soo jiidan karta kuna soo celin karta dhulkoodii hooyo.